شغلنا كانوا عطمروا يجيبوا ثم أنا أنت وضبطت كواي خاص بيسا حرب إيجام كنا أبو سيدو أنا أبو سيدو أبو سيدو أنا بتر الله ما نمري وأنك وارنا الله خبتها دارتك وتشيلها داير يا رب وش رجيو وواسي وأنك وارنا داير عليها مش كعرين استقلي استقلي هي بالله يصبر إيدي عندك وكسرني كلنا عجيب كده aad dusha uga saaraynaa falka foosha xun ee maamulka maanta jira oo cadaystay inuu kula kacay golihii wakiilada golihii sharci dejinta golihii ugu sarreeyay ummadaasi soo soo doorato oo halkaa ugu laalaabay albaabkii dimuqraadiyadda geedi socodka dimuqraadiyadda halkaasi waxaa u horseedi kartaa ummadda burbur iyo dhibaato iyo iskoorkeen waxaana mas'uuliyaddeeda iyo xilkeeda si buuxda u qaba maamulka maanta jira oo uu madaxda ka yahay daahir yaala kaahin ayaa arrintaasi mas-uuliyaddaasi si buuxda dusha uga saaranta intaa ayaan ka odhanayaa arrintii maanta dhacday wixii kalena aanu aragno inay tallaabo ummaddu inay qaadda ay tahayna shacbiga reer Soomaaliya oo dhan bay u taallaa xisbiyada mucaaradka oo qora uba taallo waxay u taallaa shacbiga reer Soomaaliya bay u taallaa inuu nabad gasho dalkiisa nabadgelyadiisa dimuqraadiyadiisa iyo jiritaankiisa waxay guddoomiyeen su'aalku weydiiyeen golaha wakiilada maanta fadhi buu balansanaa ka amar qaadanayn maxaa sabab u marinaysaa in tallaabadan maanta loo qaado ciidamada golaha loo keenay dowladdu qaatay oo tiri golay xisaanada lahaa ee ahayd inaan ciidanku soo gelin waxay u dirtaan madaxda iyo golo u dirtaan mooye intuu gudihiisa soo galay yidhi amar baa dowladdu nagu siisay inaanu albaabada usoo xidhno taas waxa weeye waa dastuur jebin waa sharci jebin xisaanad buu leeyahay golo iyo madaxdiisuba ay leeyihiin aragno inay tallaabo ummaddu inay qaadda ay tahayna shacbiga reer Soomaaliya oo dhan bay u taallaa xisbiyada mucaaradka oo qora uba taallo waxay u taallaa shacbiga reer Soomaaliya bay u taallaa inuu nabad gasho dalkiisa nabadgelyadiisa dimuqraadiyadiisa iyo jiritaankiisa waxay guddoomiyeen su'aalku weydiiyeen golaha wakiilada maanta fadhi buu balansanaa ka amar qaadanayn maxaa sabab u marinaysaa in tallaabadan maanta loo qaado ciidamada golaha loo keenay dowladdu qaatay oo tiri golay xisaanada lahaa ee ahayd inaan ciidanku soo gelin waxay u dirtaan madaxda iyo golo u dirtaan mooye intuu gudihiisa soo galay yidhi amar baa dowladdu nagu siisay inaanu albaabada usoo xidhno taas waxa weeye waa dastuur jebin waa sharci jebin xisaanad buu leeyahay golo iyo madaxdiisuba ay leeyihiin xaq uma lahayn sharcin uma laha dowladda iyo boliiska iyo ciidantoon xaq uma laha inay gudahooda u gasho waxa igu maqaalo ah oo weliba aan maqlay iska dhaaf cid kale
muxuu ahay ciidankii ilaalinayay madaxda baarlamaanka laftigoodii in laga qaada ka soo baxa albaabka tallaabada marka uu taliya ciidanka booliisku joogo amarada caynkaasa bixinayo ee uu cadaystay amar baa madaxweynuhu ugu siiyay arrinta waxa uu hadhay waa qaranka marka maxsaarad baa hadhay ma xur baa hadhay ma gola hadhay ma dimuqraadiyad baa hadhay ma nabadgelyo hadhay goliyo sharci dejinta oo hay'ad kamid ah hay'adaha dalka ugu sareeya haddii ay muuqataba in ay awood u adeegsatay xukuumadii waxaana soo baxay faalayaal sheegay in xukuumaddu damacsan tahayba in ay kala dirto xildhibaanada golaha wakiilada idinku waxay tihiin hogaamiyaasha xisaabta mucaaradka aqlabiyadda golaha baarlamaanka labada xisbiye mucaaradka baa la shirgudoonka idinkaa la garaynaya shacabkii saaka waxa shacbi tiro badan baa isku soo baxay golaha hortiisa kuwaas oo ka gadoodsan oo diidan dhaqamada xukuumaddu ay kula dhaqmayso golaha sharci dejinta idinku maxaad ku hogaaminaysaan dadka hadallo badan in badan baad hadlayseen oo cambaaraynayseen cambaarayn maahe maxaa go-aan tallaabo oo dadka u sheegsaanay idinka filay waad ogeydeen tallaabooyinka xisbiyada mucaaradku qaadeen shacbi xisbiyada mucaaradku waxay u joogaan dalka wuxuu joogaa shacbiga u joogaa shacbigay ka kooban yihiin shacbigu aad baan ugu mahadnaqaynaa tallaabooyinka aanu qaadnay ee weliba silmiga ah ee aanu ku muujinaynay maalintood dareenadayada ee aanu ku hogaaminay shacbigu waa kii si buuxa gobolada dalka nagu soo baxay hargeysa inuu joognay aan iyada nabadgelyo xuma dhicin waan dalka waxba loo geysan haddana xisbiyada mucaaradku iyagoo ku hogaaminaya shacbigu uu dareenkiisa si buuxda u muujiyey marka waxa weeye tallaabadaanu ka qaadayna waa waxaan u shirayno oo aanu ka wartashanayna haddana wey